السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بكلنتي وعن أو وناكسن ميل والبا أو أدك كلا جوبتان عالمك هل كان وحان إذن كسو قدبين دونا dhacdooyinkii ugu adkaa ee ka dhaca badda Bermuda oo loo aaneeyo inuu ku nool yahay Ibliis lacnadi ha gaadhay ma sugna meesha uu ku nool yahay lamana hayo xaqiiq dhab ah oo loo cuskan karo laakiin waxaa loo badan yahay in madaxtooyada Ibliis ku taalo saddex xagalka Bermuda. Kelmadda Bermuda waxay macna ahaan ku tahay bisha sagaalaad ee bilaha sanadka qudbiga waa bisha qasabka la beero geetimireedkana la talaalo waa saddex xagal waxay ku taalaa badweynta Atlantiga dadkeedu wuxuu gaadhaa 770 kiiloomitir waxay ka kooban tahay jasiirado badan oo lagu qiyaasay 350 jasiiradood. Bermuda waxay ka durugsan tahay bariga Mareykanka 930 kiiloomitir waxaana gumaystay Ingiriiska 1684 intaas kadib waxay qaadatay isxukun daakhili ah sanadkii 1968 inta jasiiradood ee la degan yahay 20 kaliya may gaadhin. waxaa saddex xagalka Bermuda lagu leeyahay gaadiid badan oo doonyo leh maraakiib leh dayuurado leh ilaa haddana dadkii la socday iyo gaadiidkiiba aan lahayn jaan iyo cidhi meel ay dhigeen waxaana ka mid ahaa sanadkii 1948 soddonkii bishii January dayuurad rakaab ah oo ay saarnaayeen 31 qof ayaa lagu waayay 28kii bishii 12aad 1948 dayuurad ciidan oo 35 askari ayaa lagu waayay 17kii bishii koowaad 1949 dayuurad rakaab siday ayaan la arag bishii December sanadkii 1877 dayuurad tamashle ah oo ay saarnaayeen nin iyo xaaskiisii iyo inan uu dhalay iyo 8 nin oo ganacsato ah ayaan iyana la arag sanadii 1921 waxaa la waayay doon laga lahaa wadanka Mareykanka oo ay saarnaayeen 12 shaqaale ah 1935 27kii February hotel xeebta ku yaala ayaa arkay dayuurad ku soo socota markay dadkii arkeen badda ayay ku dhacday waxaa loo yeedhay ciidamadii badda waxraad ahna lagama helin. 5tii bishii koowaad 1945 waxaa israacay 5 dayuuradood oo Mareykan laga leeyahay oo kuwa dagaalka ah markay hawshii fuliyeen waxaa la faray inay saldhigoodii ku soo noqdaan waxaase dhacay wax aan la filayn waxay la soo hadleen saldhigoodii waxayna sheegeen inay lumeen oo weliba aanay sheegi karin halka ay marayaan hadalka waxay ku celcelinayeen in ay awood ka badani ay haysato. isla markiiba waxaa la diray diyaarad dagaal oo ay saaran yihiin 13 askari oo ka mid ah ciidanka sida gaarka ah u tababaran. waxaase la yaab noqotay markii dayuuradii isgaarsiintii ka go'day lana waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. wuxuu yidhi qoraa Mareykan ah oo wax ka qora dhacdooyinka saddex xagalka Bermuda waa meel khatar ah waxay qabtaa in ka badan 100 doonyo iyo dayuuradaba leh waxaana ku naf waayay dad aan tiradoodu ka yarayn 1000 qof. intaas aan sheegay waa fara ku tiris balse waxaa Bermuda ka dhacay boqolaal dhacdo oo yaab leh. halkaas ayaa loo badan yahay in Ibliis saldhigkiisa ugu weyn yahay oo amarkiisa uu ka fuliyo. waxaa jooga malaayiin shaqaale ah iyo balaayiin ciidamo gaar ah oo u adeega Ibliis. sidoo kale waxaa iyana degan inanta uu dhalay ee uu ku curtay waxay iyana leedahay guri weyn oo qasri ah. waxaa la sheegaa in Nabi Suleymaan calayhi salaam ku yidhi cirfiidka itus Ibliis kadibna wuu kaxeeyay oo wuxuu u geeyay Ibliis oo biyo dushooda fadhiya. Ibliis markuu arkay ayuu istaagay kadibna Nabi Suleymaan ayaa ku yidhi dadka yaad ugu jeceshahay. wuxuu yidhi Ibliis Suleymaanow haddaanad ii iman kuma sheegeen ee waxaan dadka ugu jecelahay nin u tagay. Ibliis kuma eeka Bermuda oo kaliya oo wuxuu leeyahay saldhigyo badan oo uu u kala wareego amarkiisana ka fuliyo.